maalin maalmaha ka mid ah nebiga sallallahu alayhi wasallam waxaa u yimid jibriil calayhi salaam. markaasuu wuxuu ku yidhi yaa muxamed atashtaki, muxamedow miyaad xanuunsan tahay? nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi nacam, haa waa xanuunsanahay. kadib jibriil calayhi salaam wuxuu bilaabay inuu nebiga sallallahu alayhi wasallam أذكارك أقريو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحان ربا إنان كلو ذاقو ذكري أما الدعاء آدو قيمة بضن أولو أقريو دتك مركي إشا كل عضو. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحورنا حديث كان وحو كجرى صحيح مسلم نبي صلى الله عليه وسلم إنو حانون صدي. markuu xanuunsaday kadib waxaa u yimid jibriil calayhi salaam. markaasuu wuxuu ku yidhi yaa muxamedow atashtaki, miyaad xanuunsan tahay? rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi bala, haa waa xanuunsanahay. kadib jibriil calayhi salaam nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku aqriyey dikrigan ama ducadan: bismi illaahi urqiika من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ولا ليالدعاء أما الذكر ودعاء قيمة بضن. النبي صلى الله عليه وسلم مركو حنوس أي جبريل كو أقري دعاء سانتا أقيمها بضن. معناها يا ربنا إنا فهمنا سان أحفظنا إن شاء الله. دعاء وحي كب اللابة بسم الله أرقيك، الله أود له الدون كان دنقعنت كهايا مقعيس أيان كوحر سحرا. الله أكبر. من كل شيء يؤذيك، وحان كاقحر سحرا وحوالبو أو كلبايو. وحوالبو وحربت هالنقطو، أما إلها النقطو، أما جبني هالنقطو، أما حنوك لها النقطو. wax walboo ku dhibaaya ayaan kaaga xirsi xira. tan saddexaad, min sharri kulli nafsin, naf walbo sharteeda. wax walbo adduunyadan joogo ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo, shartoodane waa kaa xirsi xiraho magaca ilaaha kugu xirsi xira. ow cayni xaasid, waxaan kaloo kaa xirsi xiraa qof xaasid ishiisa. dadka qaarkooda xaasidiin waaye, wax wanaagsan markay arkaan bismillaah maasha allah tabaaraka allah inay yidhaahaan ma yaqaanaan. markay wax arkaan waxay leeyihiin allah kan maxaa waaye, ama abaay kan maxaa, wax un bay dhahayeen. ama haddii kale waxaa balay inuu fiiriyo waa cajibiyey maasha allah tabaaraka allahne ma dhahaayo. kaas waa xaasid. marka haddaa wax wanaagsan aragtid oo ku cajibiyo maasha allah tabaaraka allah dheh. ishaada ka ilaali dadka oo xaasid ha noqonin. jibriil calayhi salaam markuu afartan wax sheegay magaca ilaahay markuu ugu xirsi xiray kadibna yidhi min kulli shayin yuudiika, wax walboo ku dhibayaan kaa magangelina. tan saddexaadna yidhi min sharri kulli nafsin, naf walba sharteedan kaa magangelina. tan afaraadna wuxuu yidhi xaasid, il walbo xaasid leeyahna waa kaa magangelina. markuu afartaa sheegay wuxuu yidhi allah yashfiika, ilaahayga awoodda leh ha ku caafiyo. wuxuu ku soo gabagabeeyey kadib bismi illaahi urqiika. tuu ku bilaabo ku soo xiri magaca ilaahay ayaan kugu xirsi xira. ugu dambayntii walaaliya, dikrigan ama ducadan waa duco aad u qiimo badan. qof xanuunsan haddaa aragtid ku aqri. jibriil ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ugu xirsi xiray. xifdi, adiga isku aqri, caruurtaada ku aqri, qof kastoo muslim oo xanuunsan haddaa aragtid ku aqri. intaa keliya ma ahane, walaalaha kale usii gudbi. waxaa laga yaabaa qof u baahan inuu jiro uu aqoonin dikrigan, u gudbisa ajirka ku heshid. ilaahay subxaanahu watacaala ha naga xifdiye il walba iyo xasad walba iyo dhib walbo. aamiin. jazaakum allahu khayran. baaraka allah fiikum. waa inuu xalaqada soo socoto walaalaha kale usii gudbi. waxaa kaloo jirto riwaayo kalaa jirto oo nebiga sala allahu calayhi wasallam ka sugnaaday caaisha inuu sheegayso inuu nebiga sala allahu calayhi wasallam markuu xanuunsan jibriil u yimaado ku aqri jiray. haddaba markuu jibriil u yimaado muxuu ku aqrin jiray nebiga sala allahu calayhi wasallam? xalaqada soo socota ayaan taasna ka jawaabayna insha allah tacaala.
ولا لهنا كلا أسي قدبية. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.